ayaa sheegay in berbera iyo asmara gaar ahaana berbera ay ku tahay khatar wadarta wax soo saarka guud ee Jabuuti. sidoo kale madaxweynaha Jabuuti codsigiisa ah in Itoobiya ay bixiso lacagta uu ku leeyahay Shiinaha ayaa ahayn mid munaasib ah oo ay woodi karto. waxay ahayd maalmo ka hor markii waraysi uu bixinayay madaxweynaha Jabuuti uu ku sheegay in warwar aanay ku haynin dekada berbera. hadalkan uu sheegay maanta ayaa cadeynaya in dekada berbera ay ku tahay laf dhuun gashay wadanka Jabuuti. wariyahan u dhashay wadanka Ruushka ayaa waxa uu sheegay in khuburada uu waraystay ay u sheegeen in Jabuuti aanay ku baraarugsanayn dekada berbera muddo laga joogo 2 sano ka hor ayna waqtigani ay ku soo baraarugtay xaaladda oo ku adag. madaxa DP World Suldaan Axmed bin Suleymaan ayaa hore u sheegay inay tahay wax in dhaqaalaha dekada Jabuuti la filayo inuu hoos u dhac weyn ku yimaado berbera marka ay hawl gashay dekada berbera sanadka 2021 oo ay ka harsan tahay wax bilkaya. dhinaca kale warar lagu kalsoon yahay oo wargeyska Foore uu daabacay ayaa daaha ka rogay in dowladda Itoobiya ay gabi ahaanba ka laabatay saamigii 19% ahaa ee ay ku lahayd mashruuca maalgashiga shirkadda Imaaraadka ee DP World kula wareegtay marsada magaalada Berbera ee Somaliland. xogahan oo wargeyska Foore ka helay diblomaasiyiin ku sugan dalka iyo dibadiisa oo u dhuun daloolo arrimahani ayaa tibaaxaya in dowladda Itoobiya ay gabi ahaanba ka noqotay saamigii 19% ahaa ee maalgashiga marsada markaasna ay la baxday saamigaasi ay ku lahayd maalgashiga dekada berbera. waxaana taasi bedelkeeda ay door biday inay iskugu luguduwato dhanka iyo dekada dalka Jabuuti ee ay hore u isticmaali jirtay iyo dekada kale oo ay ka qorsheynayso wadamada badaha ee geeska ku yaala. dhanka kalena tan iyo markii uu xukuumadda Itoobiya la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa isa soo tarayay in dowladda Itoobiya ay ka noqotay saamigii ay dowladda Somaliland ka siisay mashruuci shirkadda Imaaraatiga ahayd ee DP World kula wareegtay marsada magaalada Berbera iyo in aanu wanaagsaneyn xiriirka Somaliland iyo Itoobiya marka loo eego hadiyadii hore ee dowladii Silaayo iyo Riyaale. waxaana taasi loo nisbaynayaa inay keentay in dowladda Itoobiya gabi ahaanba la baxdo saamigii maalgashi ee marsada Berbera ay ku lahayd ee ahaa 19%. geesta kale xogaha ayaa intaasi ku daray in Itoobiya joojisay waxyaabihii ay kala soo degi jirtay magaalada Berbera iyadoo aan dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay isticmaalin dekada Berbera. hase yeeshee xogahan ayaan si rasmi ah u sheegin sababaha rasmiga ah ee ay Itoobiya uga noqotay saamiga ay ku lahayd maalgashiga marsada Berbera iyo sababaha ay u joojisay isticmaalka dekada Berbera. ma jira war amuurtani ku saabsan oo ka soo baxay xukuumadda Somaliland iyo dowladda Itoobiya marka laga reebo xogahaasi uu helay wargeyska Foore ee sheegaya in dowladda Itoobiya ay gabi ahaanba ka laabatay saamigii ahaa 19% ee ay ku lahayd maalgashiga marsada Berbera. balse waxaa la filayaa in xukuumadda Somaliland ay maalmaha soo socda arrintaasi ka hadasho isla markaana ay tafaasiil ka bixiso. sidoo kale warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in dhinaca Somaliland ay ku doodaysaa in ka noqoshada saamiga Itoobiya uu ka yimid dhinaca Somaliland isla markaana ay Somaliland arrimo amni awgood u joojisay saamigaasi. dhinaca kale xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya xukuumadda Abiy iyo dowladda Itaalka daran ee Soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya waxaana si weyn loo aaneynayaa in gaabiska ay Itoobiya ku samaysay xiriirka Somaliland ay la lahayd inuu yahay mid ay ku raali gelinayso dowladda farmaajo cadaadis diblomaasiyadeed ku haysa Somaliland.